gudoomiye ku-xigeenka qorsheynta iyo dib u dhiska gobolka Shabeellaha Hoose Mudane Bashiir Maxamed Yuusuf oo uu wehelinayay taliyaha guutada lixaad ee qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaashaanle sare Cabdiraxmaan Cilmi Jimcaale ayaa maanta kormeer shaqo ku tagay wadada isku xirta magaalooyinka Baraawe iyo Buulamareer. Kormeerkan ayaa qayb ka ah dadaalada lagu dardargelinayo qorshaha dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha ee gobolka iyadoo la filayo in dhawaan ay si rasmi ah u bilowdaan howlaha dhismaha laamiga muhiimka ah ee isku xiri doona Baraawe iyo Buulamareer. Mas'uuliyiinta ayaa intii ay ku sugnaayeen goobaha ay wadadu mari doonto waxay qiimeyn ku sameeyeen xaaladda wadada iyo diyaargarowga mashruuca kaas oo la filayo inuu sare u qaado isku socodka bulshada, ganacsiga iyo horumarka guud ee gobolka Shabeellaha Hoose. Mashruucan ayaa loo arkaa tallaabo muhiim ah oo lagu xoojinayo isku xirka degmooyinka gobolka iyo fududeynta adeegyada bulshada iyo dhaqaalaha.